tusaale ahaan cimrada marka la tago tobanka ugu dambayso oo la yiraahdo muxuu ahaa loosha taajudka loo soo toosayo sheekh ugu weyn ee cimrada maxaa la yiraahdaa taraawix iyo taajudka ku jirayo markuu duceynayo ilaahay uu baryayo koow markuu duceeyo oo laba uu duceeyo saddex duceeyo madaxda dalka uu duceynaya ilaahayo boqol salmaan isaas yeel aamin balay annagoo dhan ka daba duceysan ilaahayo wiilku uu dhalay oo maxaa la yiraahdaa maxamed bin salmaan ilaahayo isaas yeel ilaahu dawladda garsaag bulay war maxaa idin diiday Soomaaliya ina dawladda duceysan oo tiraahdaa ilaahayo xasan sheekh maxamed garab istaag ilaahu xamise garab istaag ilaahu xukuumadda garab istaag ilaahu amniga garab istaag ina tiraahdaa maxaa idin diiday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان صاحبة الصوماليات ملكة الجوكتان يسكر صعود ضوء حلو ناس وياي فرتاق جواب كوبن أيان سين دونا حصل شيء موضوع الحقوق سابسين هاي حصل الشيخ محمود أو أفك صاري وضو وخري وخلدمي الله ونحرس تبع الحويني محمد سياد بر وحلاقي يابا إن محمد سياد بر مكان مغشيد تراهدي مدحوينها geeriyooday maxaa laga rabaa Soomaaliya taariikhdeeda qofka ka hadlaya Maxamed Siyaad kama tagi karo sababtoo ah icon ayuu u yahay taariikhda waxa weeye wax badanna wuu qabtay wax badanna way ka khaldaneen marka maadaama uu kamid yahay taariikhda Soomaaliya waxa weeye waa la soo hadal qaadaya sababtoo ah Soomaalidu waxay tiraa ushi la waayo ul lagu cabiro ama lagu jimeeyo gaabatay ama dheeraatay marka aynu ka hadlayna taariikh taagan ama wax soo socda waa inaynu naqaano wax aan soo dhaafnay iyo sidii ay ahaayeen marka Maxamed Siyaad iyo beeshiisa cidna dacwo uma qabto hase yeeshee waxa weeye xaaladda maanta taagan ee jidka xasan maxamed ku socdo marka aynu eegno kuna cabirno wadadaas horay madaxweynahaas u maray cid kula talisayba waxa weeye waxa imaan kara ayaynu markaasi saadaalin karnaa waxa weeye horta aynu ku hormarno jawaabta fartaag wasiir fartaagow warkaagu baxdo waxaa tiri madaxweynaha loo duceeyo ummaddu inay madaxweynaheeda u duceyso oo muxuu ahay tiliira madaxweyne cumrigaaga Allah dheereeyo xilka Allah ku fududeeyo maba diidanin laakiin xasan maxaan uga duceynaa ma wax uu qabtay baa jira nimanka aad la barbar dhigtay ama aad la maslisay ee Sacuudiga waxa weeye xukunkay dadka u diideen waa boqortooyo laakiin dadka Sacuudigu waa dhargan yahay gaaja ma hayso caafimaad darro ma hayso waxa weeye dadka way isu dul saareen wax walba xukunkaas bay dhahayaan la ku soo faragelin cid noogu taana qoortan jabay hase yeeshee xasan maxamed ma waxaan uga duceynaa xoolaheennii uu boobay fartaagu xasan shacabka Soomaaliyeed wuu dhacay waxaan oran karaa waa madaxweyne tuuga marka madaxweyne tuug ah ma tuuganimadan walaalow uga duceynaa oon dhahnaa waad ku mahadsantahay xasanow saad noo boobtay waad ku mahadsantahay xasanow sidaad noo dhacday madaxweyne tuuga marka aan leeyahay dadka uu boobay baan ka mid ahay dhulkeennii ekis warshada caanaha ama goofki awowgay gacal maxamed warsame ina adeeradiisa u oobay xasan xataa hadduu isagu qaato way ka duwanaan lahayd يعني waxa maanta aan dareemayno wax ka duwan baan dareemi lahayn oo waxaan oran lahayn war waa madaxweynaha jamhuuriyadda laakiin nin isaga ku qabiil ah ayuu siiyay halkan qaado dhulkaana laba wax kama dhixin in qaranka shalay qoyskeena ka qaaday uu haysto ku nacfiyo iyo in haddii qaranka ka maarma sidii awalba lagu heshiiyey annagana loo soo celiyo wax ka dhixeeya ma jiro labadaba waxaan ahayn xasan keenayo nin beeshiisa ah oo islahu siiyay marka maxaa loogu duceey waayay markaad tiraahdo ee aniga soo galiga absaaq qaba yaraaho waxaan la yaabayaa kelmadaas oo kale warma waxay oo naga dhacan uga duceynaa ninka maxaa ugu duceynaa xasan maxamed hadduu duca rabo xoolaha islaamada soo celiyo haddaan u duceynayna waxaan leenahay xasan ducadii carabtan u duceynayna oo ahayd allah yahdiik carabtu allah yahdiik haddii ku tiraahdo duca maahe waa nooc min al-inkaar waxaan leenahay xasan iimaanka allah ku geliyo ilaahay ha ku tuso حقه ومدة أدبوبي سنة وحل لنا إله سبحانه وتعالى أبيغا إيو فميل كاغا إيو قويس كاغا إيو قبيل كاغا وحكا طلق عضو فتضا حتى قشطي تاين تاسين وقود بدا وياي وحال نسعودين درات إن مقالة مقدشو لقود دلي إيا شالي نبي تاما أقاني ويل صوماليات وبيش هابر جيرك السوجيدة ويل كازو حال لود دلي وريا إسديوان قلين تتكالوغو خصبايو دونيدا كوركيدا laguma arag meel aan Soomaaliya ahay muwaadinka Soomaaliyeed naftiisa wuxuu ku waayay
isdiiwaan geli taas marka waxay tusaale ka bixinaysaa waxa soo socda iyo xasan sheekh maxamuud waxa uu dareensan yahay xasan sheekh maxamuud ugu dambayn qabiil buu salka la galay bahasha wuxuu ka soo bilaabay ignore garaynta beelaha daarodu qadka ka saaray dir iyo digli mirif uu qadka ka saaray hawiyow bahasha keenay hawiye markii la soo gaaro wuxuu tuuray mursade iyo xawaadle iyo iska tuuray hiraabuu yimid hiraab markii la yimid ayuu habar gidir sii tuuray muduloodow ku soo ururay muduloodow abgaal uga sii degay abgaalow wacayslo uga degay wacayslow maanta cali gaaf xasan ka maraya si fiican dhegeysta cali gaaf buu madaxweynuhu maanta maraya waaba hadduu ku hakanay waxa weeye marka ciidamuu diyaarsaday waxaa la leeyahay hadda ilaa 5 ilaa 4 kun oo ciidan ah ayaa u diyaarsan uu doonayaa doorashada inuu ku boobo oo cali gaaf iyo in yaroo lagu barxaya taas ayaana keenaysa dadka in lagu khasbo oo la yiraahdo waryaa isdiiwaangada dika laftan ku dhaafin haddii doorasho la iskuma khasbo anigu dal baan deganahay citizen baan ahay laba doorasho hadda la soo dhaafo midna tahay dowladaha hoose midna ay tahay tan guud labadaba ma tegin waana la soo diray warqadda uguma talagelin inaan gooyo laakiin waan haleeli waayo waqtigiya ii suurtagal waa cid ku qabsatayna ma jirto itiri maxaad u codayn weyday waxa weeye marka adduunyada waxaa jira wadamo dadkooda xataa uusan diiwaan gashayn maraykanka oo ah dalka birmuud gareeya ama dimuqraadiyadda iyo dadka isdoorta shacabku inuu codeeyo xooga saara waxa weeye waxaa ku nool ama ka jira dad aan weligood kaarka codaynta qaadan oo weligood ba codayn laguma khasbado lagumana qabsado waxa weeye marka xageed ka keentay wariya isdiiwaangalka lagu khasbay taariikh yar baan markaa kaga sheekeynaya oo ku saabsan madaxweyne maxamed siyaad barre iyo sanadihii ugu dambeeyay isla markaana markaa taariikhdaas dhigaysataan ay idin soo bixi karto xasan sheekh maxamuud iska ugu socdo horta xasan sheekh maxamuud inaan uga sheekeyno taariikhda burburkii Soomaaliya iyo waxyaabihii dhacay iyo qabiilku dhibka uu leeyahay isagoo 70 jir ah oo dhashay 1950 maantana 2027 ay u tahay horta waa nasiib dar laakiin waxa la yiraahdaa waxa loo sheegaa ha laga maqlay ha laga yeelo looma sheego yeelida cid la hadlaysa leh sheegidana baa iska madaxweyne maxamed siyaad barre allah naxariistee wax badan baa lagu amaanaa xasan sheekhna kun jeer uu ka wanaagsanaa marka xaqada laga hadlo 1969 markii militarigu dalka uu qabsaday militarigaas uu isagu hogaaminayay ilaa 1979 waxba laga ma sheego xaaladdu okay bay ahayd wax dhibaato qabyaalad balaayo qurun midna ma jirin laakiin dagaalkii Itoobiya marka laga soo laabtay ayaa waxa bilaabatay jabhado iyo dadku inuu xoogaa maaragtay oo reaction ka sameeyo xukunkan waxyaabaha keeni kara in dadku ay wax diidaanna waxa ka mid ah xukunka dheeraada sabab ayuu u yahay hatta dawladda difaacanta marka dawladdu wixii ka dambeeyay dagaalkii 77 marka laga soo noqday ilaa 79 la soo gaaray xalku fiican laakiin 79 markii la soo gaaray 79 wixii ka dambeeyay xukunkiisa waxa ku socday hoos u dhac iyo in Soomaalinimadii looga diga rugto qabyaalad ugu dambayn waan soo koobayay 1988 dagaalkii Hargeysa lagu qaaday markuu dhacay maxamed siyaad barre wuxuu ku soo ururay Mariixan wuxuu haystay baa la yiri 7,000 oo ciidan oo Mariixan ayuu diyaarsaday cid kula talisay si xukunka uu joogo 7,000 ciidan oo Mariixan markuu haystay 89 markii la soo gaaray Mariixankii ayaa kala baxay oo reer diini iyo nan reer diini bay u kala baxeen waa qabyaalada iyo qiibo daradeeda sida basashii u fiiqantay reer diini iyo nan reer diini yaa badan Mariixan markii la yiraahdo inta kala badan okay 89 markii reer diini ay ku soo hareen marka 90 markii la soo gaaray reer diini ayaa u kala baxay bahwiye iyo bah ogaadin bahashu waxa weeye mar walba way sii fiiqmaysaa waxa ku soo haray niman la yiraahdo bahwi 90 markii la soo 91 marka la joogo maxamed siyaad barre waxa weeye bahwi ya kala baxay oo waxa weeye baxawaale iyo bax mudulood bay u kala baxeen ugu dambeeyna dalka markuu ka baxayay nimankii reer kooshin jufadiisa hoose ahaa maxamed siyaad barre way difaaci waayay iyagu baan ku soo haray ugu dambeyn sidii loo fiiqayay baasho halkaas bay tagtay ninba maalin baa laga tagay dabcan waxay la tahay madaxweyne maxamed siyaad barre
muwadani buu ahaa muwaadin fiican oo wadani uu ahaa oo dalkiisa jecel laakiin duruuf baa ku kaliftay dad tala xun baana kula taliyay tolkaaga isku hareere waxa weeye marka waxay noo dhashay waad aragtaan oo laga sheekayn maayo 35 sano oo burbura ayaynu ka dhaxalay maanta xasan sheekh maxamuud inuu Soomaali ka soo tago hawiye ka soo tago hiraaq ka soo tago mudulood ka soo tago abgaal ka soo tago wacaysla ka soo tago cali gaaf yimaado waxa laga dhaxli karo waad garan kartaa waxaan rabaa marka mawduuca anigu rabay in aad u sii dheereeyo halkan inaan fariin uga diro jufada xasan sheekh iyo cali gaaf ee maanta xeelka uu ku taxay ilaaladii madaxtooyada uu dhiibay uu doonayo dadkeena uu ka caburiyo waxaan leeyahay cali gaafow xasan maxamuud ma meel marsin karta naftiina been bad u sheegaysa cirbad ceel lagu tuuray waad noqonaysaan haddii laydin barbar dhigo Soomaali iska daaya hawiyaha degan magaalada Muqdisho xasan waxaan leeyahay ku fadeexoobina ha ku dhibaatoobina ma difaaci kartaan kursina kuma hayn kartaan aqligiinu ha shaqeeyo waa takana aad iyo aad u foolxun ha gelino nimankii reer diiniyaaba iska tago gobolka ay lahaayeen aaday hadda adinku waxa weeye dadkina waa la degantii halkan baad joogaysaan haddaad isku daydaan inaad xasan muxuu ahaaytay aad kursiga ku haystaan waxa weeye adinku ku dawargo'aysaan isaguna waxa suurtagal la fiirsan oo ku waay madaxweyne maxamed sallallahu alayhi wa sallam naxariistay ugu dambeyn la fiirsa dalka uu kala baxsado kii xeebta maray iyadoo loo fadhiyo meesha leedahay afgooye ugu dambeeyna waxa weeye gacan bina aadam kuma sababsan iskii ayuu u geeriyooday laakiin waxa suurtagal xasan sheekh maxamuudna la fiirsan inuu ku waayo jufadiisaas maanta isku dayaysa inay meesha ku haysana mahadha ay ka raacdo oo dad duka cambaar la noqdaan oo iyaga gaar loo ogaarsado marka waxaan leeyahay hadda runta u sheego waxa tiraadaan war hawiye iyo Soomaali midna kaama difaaca karnaa madaxweynuhu wax la isku raacsan yahay doorashada dalkan ka qabo cidna ma khasbi kartid umada khasabka ka daa talaasaynu siinayna hadday diidaan ninkaas waalan iyaga ka dhashay ay u aqli celin waayaana waxa weeye cirib dambeedkeeda iyo waxa ka dhalan doona iyaga unbay aabadhi doontaa barnaamijkayga intaasaan kusoo gabagabaynayaa hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh